subax wanaagsan daawadayaal soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda ee garqaad media wararkan ku soo qaadan doonana waxaa ugu waaweyn. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaysan hakin doonin howlaha ay ka wado gudaha Soomaaliya xilli la beegsanayo saraakiisha uga sugan gudaha Soomaaliya. Guddiga doorashada madaxweynaha Galmudugna waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo lagu dhawaaqi doono iyadoo ay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay dalbadeen in dib loo dhigay xilliga doorashada. dhanka kalena madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed iyo weliba hirshabelle ayaa waxa ay magaalada muqdisho u yimaadeen cabasho ku aadan qaabka loo wado maalgelinta magaalooyin ka mid ah Soomaaliya iyadoona ay cabasho uga timid dowladda dhexe ee federaalka. kooxda difaaciisa madaxweyne Trump waxa ay sheegeen in uusan jirin wax dambi ah oo gala madaxweynaha isla markaasna aysan habbooneyn in waqti xaadirkan lagu aadiyay kiiska ku aadan in isaga laga xajuubiyo xilka madaxweynaha maadaama dalku galaya bilaahayn oo la doorasho. qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa daaqodayaal haddii aanu ku bilowno faahfaahinta qodobadii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu si kulul uga hadlay qaraxii ismaamulka ah ee shalay lala eegtay injineer u dhashay Turkiga kuwaas oo dhisay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. ninkan wasiirka ayaana sheegay in weerarkaasi aanu marnaba hakin doonin howlaha ay ka wadaan Soomaaliya isagoona qirin weerarkii shalay uu waxyeelo ka soo gaaray muwaadiniin Turkish ah. weerarkii argixisada ee Soomaaliya ka dhacay waxa uu mar kale muujinayaa wejiga foosha xun ee argixisada. weerarada bahalnimona marnaba nagama joojin doonaan la dagaalanka argixisada waana garab taagnaan doonaa walaalaheena Soomaaliya. waxaana walaalaha dhaawacmay u rajaynayaa buu yiri dhaqsi inay u bogsadaan si ay dhowna ay ula socdaan doonaan xaaladooda ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga. Al-Shabaab ayaana kordhiyay weeraradii ay ka dhankaaday howlgallada Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana tan iyo markii wadadaas la bilaabay dhacay qaraxyo miino iyo kuwa lala eegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. bishii December sanadkii hore ayaa markii weerar ismaamulka oo ka dhacay Access Control Afgooye kaasoo ay ku guryoodeen laba injineer u dhashay Turkiga iyo weliba kontameeyo ruux oo shacab Soomaaliyeed ah. Turkiga ayaa waxa uu ka mid ahaa wadamada sida aadka ugu soo gurmaday Soomaaliya markii ay ka dilaacday abaartii 2011 iyadoo markaasi uu dalka yimaaday madaxweynaha dalka Turkiga oo markaas ahaa wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo weliba haweeneydiisa. wixii intaasi ka dambeeyay Turkiga ayaa waxa uu noqday garabka koowaad ee Soomaaliya wixii intaasi ka dambeeyay isagoo Soomaaliya ka dhisay iskuulo isbitaallo iyo weliba sidoo kale inuu taageero dowlad kasta oo markaasi timaada. Turkiga ayaana waxa uu yahay hadda dowlad si aad ah ugu dhow xiriir walaaltinimo iyo weliba mid diblomaasiyadeed Soomaaliya waxayna mar walba howlo shaqo iyo weliba mid gargaarba ka samaysaa gudaha Soomaaliya. waxayna muddooyinkii ugu dambeysay ku mashquulsaneed dhismaha wadooyinka waaweyn ee gudaha Soomaaliya iyadoo wadadii ugu horeysay ay ka bilaabeen dhismaha Muqdisho iyo weliba Afgooye taasoo dhan wado 35 kiiloomitir. dhanka kalena waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in lagu dhawaaqo guddiga doorashada madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed. xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaana maanta waxa ay yeelan doonaan kulan aan caadi ahayn kaasoo lagu wada in lagu magacaabo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Galmudug iyo weliba ku-xigeenkiisa. guddoonka cusub ee baarlamaanka Galmudug ee maalinta Jimcihii la soo dhaafay la doortay ayaa shir gudoomin doona kulanka maanta. gudoomiyaha cusub Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo labadiisa ku-xigeen ayaa shalay kulan la qaatay afar ka mid ah musharaxiinta isbahaysiga waxaana laga dhageystay cabasho ku aadan hanaanka ay u socdaan doorashada. kulanka maanta ee xildhibaanada ayaa waxaa marka la magacaabo guddiga doorashada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba soo saari doonaa jadwalka doorashada madaxweynaha iyo weliba shuruudaha laga rabo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Galmudug. wararka qaar ayaana sheegaya inay u badan tahay in doorashada la qabto muddo 10 maalin gudahood lana filayo ugu dambeyn dhamaadka bishan Janaayo in la qabto. baaqay soo saareen musharaxiinta xulafada ayaa waxay ku dalbadeen in la siiyo fursad ay xildhibaanadu uga dhex ololeeyaan isla markaasna la joojiyo jidgooyooyinka xanibaada iyo weliba handadaada lagu hayo xildhibaanada sidoo kalena 21 maalmood la siiyo fursad xildhibaanada si ay u bartaan musharaxiinta madaxweynaha taasoo ay noqon karto caqabad aysan aqbali karin guddoonka baarlamaanka maadaama dhismaha maamulkaasi Galmudug uu qaatay muddo badan isla markaasna loo baahan yahay si dhaqso ah loo soo gabagabeeyo taasoo ah in dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegayo inay wado in shir iskugu yeerto maamul goboleedyada
kaasoo ka dhici doona horaanta bisha February gudaha magaalada Muqdisho. La rabana in doorashada Galmudug ay dhacdo ka hor arrintaas, taasoo ah sababta aysan marnaba u aqbalaynin balayiri guddoonka baarlamaanka muddo badan in la sugo xilliga doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi Galmudug. dhanka kalena xog ay heshay Garqaad Media ayaa sheegaysa in madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle Muqdisho u yimaadeen cabasho kalena dowladda Soomaaliya. xogta aan ayaana sheegaysa in dhinacyadan ay beedhawo isaga wareysteen dhibaatooyinka ay ku qabaan lacagii ay heli jireen ee maamul goboleedyada loo marsiiyo bangiga dhexe ee wada shaqeynta xukuumadda oo aada u liidata. sidoo kalena dhinacyadan ayaa ka cabanaya inaysan dhaqan gelin heshiisyo wada shaqeyn oo dhex maray xukuumadda iyo weliba labada maamul goboleedba, kuwaas oo ka mid ahaayeen balayiri fulinta mashaariicyo dhismo, shaqo abuur iyo weliba in loo tababaro ciidamo daraawiish iyo weliba kuwa boolis. wararka ayaana sheegaya in labadan maamul ay aada kusoo food leeyihiin doorasho guud oo Hirshabelle iyo weliba midda baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ayaa isku afgartay in ka hor arrimahaasi ay cadaadis saaraan dowladda Soomaaliya si loo dhaqangeliyo heshiisyadii ay gareen dhinacyadaasi. kulankoodii beedhabo ayaa la sheegay inay isku raaceen dhowr qodob iyo weliba barnaamij horumarneed oo isku jira mashaariic dhisme iyo weliba shaqo abuur. haddii ay fulin waayaan ay caddeyn doonaan in xukuumadda ay diidan tahay wada shaqeynta maamulada. labadan mas-uul ayaana waxay yihiin labada maamul ee keliya ee wada shaqeynta ee dowladda la leedahay, waxaana la aaminsan yahay in haddii aysan hore u ahayn ay tabashooyinkooda hoose ay jireen, islamarkaasna dowladdu ay sida dhaqsiyo badan uga jawaabi doonto. xubnaha ka tirsan Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaana waxay noo sheegeen in la filayo kulan ay dhex maraan madaxweynaha iyo weliba wasaare Kheyre oo dhinac ah iyo weliba madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo weliba Hirshabelle, kuwaas oo iyagoo hadda u jooga gudaha magaalada Muqdisho cabasho ka dhana dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn, wararka caalamka ee kooxda dhinaca sharciga u qaabilsan madaxweyne Donald Trump ayaa bixisay jawaabtii ugu horeysay ku saabsan arrinta loo soo jeediyay madaxweynaha, taasi oo ah in xilka qaadis lagu sameyn doono. sharciyaqaanadan ayaana arrintani ku tilmaamay weerar halis oo lagu qaaday dimuqraadiyadda. dukumeentiyada kooxda oo ka kooban 111 bog ayaa lagu sheegay in qodobada xilka qaadista aysan ku jirin wax muujinaya in dambi uu galay madaxweynaha, islamarkaasna looga gol leeyahay in lagu farageliyo doorashada madaxtinimada ee sanadkan dalkaasi ka dhici doonto. hadaljeedinta dacwad oogidda ayaana lagu wadaa inay bilaabato toddobaadka soo socda, taasoo macquul tahay in xilka looga qaado madaxweyne Trump. madaxweyne Trump waa madaxweynihii saddexaad inta la ogyahay taariikhda Mareykanka ee wajaha dacwad xilka qaadis ah, waxaana lagu eedeeyay ku tumasho awood iyo weliba inuu aqalka Koongareeska iska hor istaag ku sameeyay. aqalka Koongareeska ayaa waxaa maamula dimuqraadiyadda mucaaradka ah ee dacwadda kusoo oogay madaxweynaha bishii hore, halka sanadka ay ku xoogan yihiin xisbiga jamhuuriga ee Trumpna ay go'aansan doonaan in madaxweynaha laga qaado iyo xilka iyo weliba in kale. dimuqraadiyiinta oo ka jawaabay sababta madaxweynaha xilka looga qaaday ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku buriyay dhaartii uu dalku ku dhaartay, isla markaasna uu meel kaga dhacay ammaanadii shacabka ee dalkaasi Mareykanka. jawaabta ay qareenada bixiyaan ayaa waxa ay ku beeninayaan qodobada ay kooxda sharciyada ah cuskadeen dacwadda xilka qaadista madaxweyne Trump. kooxdan oo ay hogaaminayaan Pat Cleaver oo ah taliye aqalka cad iyo weliba qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump oo ah Jeff Sekulow ayaa waxay sheegeen in dacwadda xilka qaadista ay ka eegi doonaan labada dhinacba, haddii ay ahaan lahayd hanaanka loo mariyay iyo weliba dastuur ahaanba, iyagoo intaa ku daray in madaxweynuhu uusan wax khalad ah ka sameyn, islamarkaasna aanan loola dhaqmin si cadaalad ah. waxayna xuseen in qodobada ku jira dacwadda xilka qaadista ay halis ku tahay xuquuqda dalka Mareykanka iyo weliba xaqa ay leeyihiin inay si xor ah u doortaan madaxweyne. jawaabta qareenada ayaana kusoo aadaysa maalin kadib markii madaxweynuhu soo dhammaystiray kooxdiisii difaaci doonto oo ay ku jiraan dacwad oogayaal gaar ah oo xilka uga qaaday Bill Clinton. madaxweyne Trump ayaana lagu eedeeyay in dalka Ukraine uu cadaadis ku saaray in warbixin sumcad dil ah ay kasoo saartay ninkii kula loolamayay doorashada sanadkan ee 2020 ee Joe Biden iyo wakiilkiisa Hunter ayaana u shaqeeya shirkadda Ukraine laga leeyahay, halka Joe Biden uu yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. madaxweynaha ayaana lagu eedeeyay inuu taageero military oo dhan 400 milyan ku kacaysa uu ka hor istaagay Ukraine, taasi ay hore u
ugu qoondeeyeen baa layiri gudaha taasi oo horey ugu qoondeeyeen Kongareeska. Dimuqraadiyiinta ayaana sheegay inay tahay ku takrifal awoodeed arrintani, waxaana sidoo kale lagu eedeeyay inuu hor istaag ku sameeyo Kongareeska isagoo diiday inuu la shaqeeyo, iyadoona madaxweyne Trump lagu soo eedeeyay dhammaan arrimahaas iyo weliba kulamo kale ayaa waxaa la aaminsan yahay in marka ay timaado codka xilka qaadista looga sameynayo aysan ilaa hadda kala cadeen lana saadaalin karin. wixii warar ah kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaanu kusoo qaadanaynaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.